madaxaf ku yaala magaalada la yiraahdo Dresden ee dalka Jarmalka ayaa laga helay kaarka aqoonsiga ah oo ay qaataan askarta basaaska ah kaasi oo uu isticmaali jiray Vladimir Putin oo xilligaasi u basaasi jiray dalkii la oran jiray Jarmalkii bari. Putin oo hadda ah madaxweynaha dalka Ruushka ayaa sanadihii 1980 si qarsoodi ah uga howlgali jiray magaalada la yiraahdo Dresden isagoo basaas u ah hay'adda KGB oo dhanka amniga u qaabilsaneyd maamulkii Midowgii Sofiyeeti. hase ahaatee waxa uu isticmaali jiray kaar aqoonsi oo muujinaya inuu ahaa askari ka tirsan hay'adda la yiraahdo Stasi oo ahayd laanta dhinaca ammaanka ee jamhuuriyaddii shuuciga ahayd ee hore loo aran jiray Jarmalkii bari. kaarkiisa aqoonsiga ahaa ee madaxweyne Putin oo ugu shaqayn jiray hay'adda Stasi ayaa la helay iyada oo cilmi baaris lagu sameynayo xiriirka wada shaqeyneed ee ka dhaxeeyay hay'adaha KGB iyo Stasi oo ahaa hay'adihii sirdoon ee Jarmalkii bari iyo Midowgii Sofiyeeti. Mr. Putin oo xilligaasi ahaa sarkaal ka tirsan KGB ayaa kaarkan aqoonsiga ah helay sanadii 1985 waxaana loo siiyay si uu ugu shaqeeyo hay'adda Stasi balse waxa suuragal ah inuusan iyaga u basaasi jirin. bayaan ay dhawaan soo saartay hay'adda ururisa taariikhda hay'addii la oran jiray Stasi ayaa lagu sheegay in Mr. Putin kaarkaasi loo siiyay inuu fuliyo howlaha KGB arrintaasina ay qayb ka ahayd wada shaqeyn ee dhexmari jirtay labada hay'adood oo isku siyaasad ah shuuciyadana ku wada dhaqmi jiray xilligaasi. sida dhabta ah magaca Stasi waxa uu ahaa naanays ay lahayd wasaaradii amniga qaranka ee xukuumadda Jarmalkii bari. Mr. Putin oo ku dhashay magaalada la yiraahdo Leningrad oo hadda loo yaqaano St. Petersburg ayaa Jarmalkii bari loo diray sanadii 1985 xilligaasi oo uu ahaa 33 sano jir. waxa uu howsha basaasnimada ay halkaasi ka hayay tan iyo bishii December ee sanadkii 1989 xilligaasi oo ay xukuumadda Jarmalkii bari ay ku burburtay mudaharaadyo looga soo horjeeday oo lagu taageerayay dimuqraadiyadda iyo Jarmalkii koonfureed. kaarkiisa aqoonsiga ahaa ee Stasi waxa loo cusboonaysiin jiray 3 biloodba hal mar sida ay muujinayaan shaabadaha ku yaala kaarka dushiisa balse ma cadda sababta uu kaarkiisa uga tagay goobta lagu keydiyo feelasha Stasi ee magaalada Dresden. 5tii bishii December ee sanadkii 1989 waxa uu goobjoog u ahaa madaxweynuhu dad mudaharaadayaal ah oo la wareegay xarunta dhexe ee hay'adda Stasi ay ku lahayd magaalada la yiraahdo Dresden iyadoo ciidamadii ammaanka ee uu ka tirsanaa ay qarka u saarnaayeen inay rasaas ku furaan shacabka dibadbaxayay ee ku soo foolka lahaa. bishii November ee isla sanadkaasi ayay mudaharaadayaashii bariga Berlin ay dumiyeen darbigii Berlin ee labadii Jarmal lagu kala qaybiyay. Mr. Putin ayaa xilligaasi si fiican u hadli jiray luqadda Jarmalka waxa uu sheegay inuu si shakhsi ah u dejiyay dadkii mudaharaadayay ee hareeyay xarunta hay'adda KGB isagoo markaasi siinayay digniin ah in meeshaasi ay ahayd dhul uu leeyahay Midowgii Sofiyeeti. intii uu waday hawshii uu KGB uga hayay magaalada la yiraahdo Dresden, Mr. Putin waxa loo dalacsiiyay darajada ciidan ee laba xidigle Corneyl. sanadkii 1989 xukuumaddii shuuciga ahayd ee Jarmalkii bari ayaa Putin abaalmarin ku siisay sida uu daacadda ugu ahaa ciidamada militariga ee qaranka sida lagu qoray barta internetka ee Kremlin. markii uu ku laabtay Ruushka, Mr. Putin waxa loo dalacsiiyay inuu noqdo madaxa hay'adaha amniga ee federaalka taasi oo bedeshay hay'addii hore ee la oran jiray KGB. wuxuu madaxweynaha dalka Ruushka u noqday sanadii 2000. bishii June ee sanadkii 2017 Mr. Putin waxa uu shaaca ka qaaday in shaqadii sirdoonka ee uu hayay hay'adda KGB ay qayb ka ahaayeen macluumaad basaas oo ah kuwa si sharci darro ah loo arooriyay. isagoo ka hadlayay telefishinka qaranka ee Ruushka ayuu sheegay in dadka wax u basaasi jiray KGB ay ahaayeen dad tayo gooni ah leh si gaar ah wax u go'aamiya isla markaana dabeecado gaar ah u leh xirfadda basaasnimada. heshiis qarsoodi ah oo dhaxmaray hay'adda KGB iyo Stasi oo ay heshay warbaahinta ayaa waxa uu muujinayay in KGB ay 30 askari u joogeen Jarmalkii bari kuwaasi oo si toos ah ula shaqeyn jiray hay'adda Stasi. afayeen u hadlay bogga internetka ee Kremlin oo lagu magacaabo Dmitry Peskov ayaa dadka ku baraarujiyay kaarka aqoonsiga ee Mr. Putin oo hore u isticmaali jiray. KGB iyo Stasi waxay ahaayeen hay'ado sirdoon oo lamaana ah sidaas awgeed ma garan kartid sababta ay kaarka noocaasi ah u kala bedesheen. halkaasi waxaa ka muuqata in madaxweynaha talada dalka Ruushka haya ee Putin ahna ninka labaad ee dunida ugu quwadda badan marka laga yimaado madaxweynaha Shiinaha ee Xi Jinping inuu ahaa jiray shakhsi sirdoon
oo ku howlgala shaqada basaasnimada, waana taasi sababta ugu weyn ee keentay in maanta la ugaarsado dhammaan mucaaradka dalka Ruushka. waxaana ugu dambeeyay ninkii lagu magacaabi jiray Alexei Navalny, kaasi oo ahaa mucaaradka ugu weyn ee uu lahaa madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin. doorashooyinka soo socdana la rabay inuu kula tartamo waa sida qorsheysneed, hase ahaatee waxaa sumeeyay hoggaanka dalka Ruushka oo Kremlin-ka ayaa laga soo abaabulay sida loo maleynayo sumeyntiisa. Jarmalka ayaa loo qaaday caafimaad ahaan, hase ahaatee markii Jarmalka uu ka soo laabtay looma daahin xabsiga ayaa loo taxaabay oo maba aha ninkii la sumeeyay ee caafimaadka u aaday Jarmalka. ilaa iyo haatan xabsiga ayuu ku jiraa. taageerayaashiisu dibadbaxyo ayay dhigeen, hase ahaatee cidna umaysan joojin oo waa ay sii socotay. waxaana arrinkaasi uu qayb ka noqday tobanaan shirqoollo ah kuwaasi oo lagu bartilmaameedsaday dad Ruushka ama madaxweynaha dalkaasi Vladimir Putin mucaarad ku ahaa, kuwa oo ay ka mid ahaayeen sarkaal u shaqayn jiray basaas laba kaarla ahaa oo ka tirsanaa jiray KGB-dii Ruushka, markii dambena usoo wareegay MI6 Britain, markaas oo lagu bartilmaameedsaday gudaha dalka Ingiriiska waana la sumeeyay. taasi waxay dhalisay in sanado ka hor ay dhaliso xiisad ballaaran oo dhanka diblomaasiyadda u dhaxaysa dalalka Ingiriiska iyo Ruushka, oo kolkii dambe gaartay in dalalka reer galbeedku ay eriyaan safiiro badan oo u joogay dalalkooda dalka Ruushka, isagoo Ruushku kaga jawaabay sidoo kale inuu cayriyo safiiro dalal waaweyn. diblomaasiyiinta cayrintooda xadka ayay ka baxday, kolkiisa dambese waa laga heshiiyey oo xaaladda waa la dejiyey. waxaan arrinkaasi uu qayb ka ahaa tiro dhowr jeer ah oo diblomaasiyadda u dhaxaysa dalalka Ruushka iyo galbeedku ay xumaatay, oo ay ka mid ahayd sidoo kale xilligii Ruushku sanadii 2014 uu ku soo duulay mandaqada Crimean-ka ee u dhaxaysa dalalka la yiraahdo Ukraine iyo Ruushka, halkaasi oo dagaal ba'an uu ku dhaxmaray quwado uu taageeray Ruushka oo ay qayb ka hayeen ciidamada federaalka ee dalkaasi iyo dawladda Ukraine. kolkii dambena jasiiradnimadaasi waxaa gacanta ku dhigay ciidamada Ruushka oo si toos ah ula wareegay diyaaradaha dagaalka iyo sidoo kale maraakiibta badda quusa ee Ruushka ayaana xeebaha soo gaaray. kolkii dambena madaxweynaha dalka Ruushka ayaa booqday. taasi waxay keentay in ururkii la oran jiray G8 ee dhaqaalaha ee warshadaha ku hormaray laga saaro dalka la yiraahdo Ruushka oo G7 maanta loo yaqaano. kol dambe ayaa lagu soo dari rabay, hase ahaatee waxaa gaashaanka u daruuray dalka Canada oo sheegay in marnaba aan lagu soo dari doonin dalka Ruushka ee G8 ilaa uu ka tanaasulo ama uu isaga baxo dhulka uu ka qabsaday dalka Ukraine. ilaa iyo haatan waxaa taagan xiisada la mid ah oo muddo kale oo xuduudaha dalka Ruushka uu la wadaagay Ukraine. ciidamo Ruush ah oo tiro badan ayaa la soo dhoobay, waxaana xiisadaasi mar kale ay sare u kicisay xiriirka u dhaxeeya dalalka galbeedka iyo Ruushka,